Cabdullaahi Xasan Cali Kuusow waxa uu markaasi ka mid ahaa bahda isboortiga dalkeena Soomaaliya ee soo maray waxa uu qayb weyn ka qaatay horumarinta ciyaaraha kubadda gacanta kuwaas oo door muhiim ah ka soo qaatay horumarka kubadda gacanta dalkeena Soomaaliya heer aad u sareeya uu ka gaarsiiyay waxa uu markaasi ka mid ahaa halyeeyada ee u soo dhabar adeegay qaybaha kala duwan ee isboortiga dalka. Cabdullaahi Xasan Cali Kuusow ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho Allah u naxariiste waxaana aaskiisa ka soo qayb galay dhammaan bahda isboortiga dalka qaybahooda kala duwan iyagoona ka tacsiyay qaraabada iyo bahda isboortiga oo ka baxay Allah u naxariiste Cabdullaahi Xasan Cali ku magac dheer Kuusow waxaana ka mid ahaa halyeeyada u soo dhabar adeegay ka shaqeynta horumarinta qaybaha kala duwan ee isboortiga dalka isagoona ahaa doorkii ugu muhiimsanaa ee isboortiga dalkeena Soomaaliya. Aaskiisa ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan shakhsiyaadkii isla soo shaqeeyeen iyo xiriirada dalka iyo qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga iyagoona ka tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariiste Cabdullaahi Xasan Cali Kuusow. Dhanka kale xiriirka kubadda kolayga ayaa maalinta Biritaa waxa uu soo gabagabeyn doonaa tartankii socday ee markaasi heerarkiisa kala duwan ee soo maray 3x3 oo loo qabtay laba qaybood oo kala ahaa qaybta wiilasha iyo qaybta gabdhaha. waxaa markaasi la soo gaaray heerkiisii gabagabada ahaa waxaana iskugu soo baxay dhanka wiilasha final kooxda Dekada iyo kooxda Horseed Cawi maalin ayaa iskugu soo baxeen finaalka maalinta Biritaa ayaana la ciyaari doonaa. sidoo kale qaybta gabdhaha ayaa iyagana loo qabtay 9 kooxood oo markaasi loo kala qaybiyay kooxaha iyagoona ka soo baxay qaybta ugu dambeysay ee finaalka 2 kooxood oo kala gabdhaha Hegan iyo gabdhaha Horseed oo iyagana maalinta Biritaa la ciyaari doono. ciyaartan ayaa ciyaar aad u xiiso badan oo la wada sugayo waana ciyaar ka mid ah ciyaaraha socda 3-3 ama 3x3 sida loo yaqaano waana tartan markiisii saddexaad ay soo qaban qaabiyeen xiriirka kubadda kolayga waxaana ka faa'iideystay dhammaan kooxaha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya.